Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan isku dayayaa in aan Eclipse-ka cabaar dul istaagno xoogaa. Dabcan Eclipse-ka waxaan kasoo dul istaagnaa qaybta idle-ka jaafada oo koodhka jaafada lagu qoro. Insha Allah Eclipse-ka waxyaaba aan ku doortay baa jira oo ah in aad projects-kaaga aad kala duduwi kartid oo faylasha hadday isku magac yihiin laba fayl oo aad kala gaar ka dhigaysid oo kale in aad laba magac oo isku mid ah u bixisid laakiin ay ku kala duwan yihiin folder-ka ku jiraan. Marka insha Allah hadda marka aan rabo in aan sameeyo laba fayl oo isku magac ah saa marka hore ujeedeen waxaan doortay graphics-ka. Hadda mar labaad haddana waxaan browse garaynayaa in aan isticmaalo kuwan mid ka mid ah waayo hadda markaan graphics markaan dooranayay lama weydiinayo fayl ku jira DTS-ka oo waxa weeye dee la dhihi maayo DTS-ku faylkan ku jira graphics-ka lagama ogola. Marka waxay noqonaysaa in aad fayl kasta aad sidiisa u isticmaashid oo uu folder-ka ku jiro oo ka baaro hadduu ka waayo uu kuu sameeyo. Insha Allah marka waxba kusii dheeraan mayno. Waxaan sameynaynaa graphics-ka ayaynu isticmaali doonaa. Waxaan leeyahay DTS-ka haddii rabbi idmo. Dabcan waxay noo sameysaaba test ka soo qaad inaynu doorano. Okay, public void-ka tigta saaro haddaanay ku saarnayn. Okay, hadda waxayna siinayaa faylkii oo diyaarsan oo only in aad wax soo bandhigtid system.output-kaaga aad samaysid shaashadda kusoo bandhigtid wax u diyaarsan. Maybe main method-ka marmarka qaar waa la iska dhaafi karaa laakiin adiga muujeskaaga haddii aad jeceshay inaad markasta uu kuu soo raacay haddii kaleba waa option aad adiga geli kartid oo ku dhufsan kartid. Okay, hadda waxaan tijaabinaynaa in inoo soo daabaco welcome to Voltage. Okay, saa ujeedaan wuu inoo soo daabacay. Insha Allah hadda waad aragtaan wuu shaqaynayaa si aan inaba caadahayn. Okay, hadda waxaynu bilaabi rabnaa in aynu soo dejino Eclipse-ka. أنا ندو يسد كسنيا وعرفتان القسم سريع لكن إن شاء الله كسد جنينا كرومكا. أوكي كرومكا وسوكي then كركا سره وحقوق ليس download Eclipse idle for Java. Okay, for Java. Good. Enter ده. Then حضرتها download Java packages. Download packages. Eclipse idle Java develop. Okay. Then حسي دورانيسا downloads بدن بياله طبعا لكن وحسب download اسمه بيناني لكن هذا kan sida directga wax kugu soo dejinaya oo aadan marna u gelin marba dhinacaadan u aadin waa download 64-bit ka hadda ujeedaan kaas ayaad ku dhufanaysaa. Okay, aynu ku dhufanno xagaa network-ga aynu ku hersugno. Okay, hadda waa kaas download buu si toos ah ku weydiinayaa kaaga mahad celinaya inaad download garaystay. Okay, hadda ujeedaan ma filayaa inuu download-ka inuu ii soo dejinayo. Okay, ani hadda uma baahni iga cancel garee inuu ii soo degsanayo sooma marka uma baahni. Okay, waa kan Eclipse-kii caadiga ahaa oo keeda faylkan hadda isticmaalayay afkan hadda isticmaalayay ma aha laakiin waa installer-kiisii. Installerka marka aan hadda soo furo waxa aan markaba iga soo horbaxaya
waxyaabo yani instalka xogaa time horta inta yar ay ku qaadanaysaa marka horeysa kugu cusub yahay insha Allah. laakiin waxa weeye bahalkan boqolkiiba boqol qofku maaragtay inuu haysto intuu install gareynaya inuu network haysta muhiim ah. Okay, Eclipse idle-ka ayaa dooranaysaa for Java developers. Okay, aynu hadda dooranay. Then waxaad sameynaysaa install baad dhahaysaa. Maybe inuu packages hadda inoo soo bixi doonta inuu kuu soo saaro. Packages baan soo dejinayaa. Taban waxaan u lahaa network markasta aad u baahantay inaad heshid wax kale maaha. Installation-kiisa ayaa wuxuu sameynayaa network buu rabaa inuu helo. Marka hadda muhiim in aanu hadda ii dirin baa macquul ah, waayo marmarka qaar hadduu hore kugu soo degsanaa inuu kuuba dirin baa macquul ah packageska badan. laakiin qofka uu computerkiisa ku cusub yahay dabcan wuu u dirayaa packages xoogaa adii time ku qaadanaya installation-ka insha Allah. marka hadda waa ujeedaan oo ii diray laakiin ma badna wax yar weeye. Okay, marka uu dhameeyo aynu sugno inuu dhameeyo. dabcan filayaa wax yar bay ku qaadanaysaa inuu dhameeyo. Installation complete successfully. Okay, hadda launch dheh wuu inoo soo kacayaa programkeeni. soo jeedaan shortcut ku ii soo laabtay ra'yiga macnaha. Okay, waxaa kaloo hadda ku weydiinaya workspace-ka meesha ku shaqeyn lahaa programkan. Okay, dabcan hadda ani waxaan rabaa in aan browse dhaho workspace-kan meel yani sida abu yaala. marka sida inaan ka soo qaataan rabaa desktop kala dhiganaya. Okay, desktop markaan dhigto waxa ay sii dhigtaa new folder 2 oo desktop-ka dabcan saaran. then tigtan haddaad saaratid yani markasta halkaas aad kusoo furaysaa oo shaqo kasta oo aad yani file kasta sameynaysa halkaas ku sameynaya. haddii kalena waxaa ku weydiinaya meesha aad dhigaysid filekan. Okay, launch sida. Okay, hadda starting buu sameynaya. Okay, waxaan isku dayaynaa insha Allah in aan sameyno laba project. dabcan laba project haddii la sameeyo ama si kala damiran laba folder haddayna sameyno ka badan waa awoodi kartaan in aad sameysaan, waayo folderka labaad sida loo sameeyay ayuu kan saddexaadna u sameysmaya, kan saddexaadna kan afraad buu sii eegaya. dabcan wax waa isku wada dariiqad waana isku wado. marka insha Allah waxaan rajeynayaa in ay yani aad uga faa'iideysan doontaan inaad macluumaadkiina aad ku kala socdaan oo folder gaar ah ku kala shubtaan insha Allah. halkan waa welcome page-kii tigta hadda ka qaadid markasta shaashadan kuma soo kacayso welcome-ta. marka hadda waxaan u baahnaa inaan project Java sameyno waa shaashada welcome-ta laftigeedu kaaga soo saarayaaba. Okay, intaasaynu ku dhufanaynaa. then project-ka magaciisa aynu qoraynaa. project-ka magaciisa iyo folder-ka magaciisa waa same. marka folder-ka magaciisa markaa qortid ama project-ka magaciisa markaa qortid folder-kan wuxuu bixinayaa magaca project-ka. Okay, finish dheh. maybe next waxaa isku sii wareerin finish kaliya iska dheh. muhiim ah inaad next sii aadid. Okay, finish binary. Okay, module ku weydiinaya modulaha don't create iska dheh. Okay, don't create dheh. Okay,
hadda wuxuu ku soo qabtay shashadii qaybtii waxa lagu qori lahaa laakiin ma uu furna in aad wax ku qorto طبعا markaas wax ku qoro ka diidaya okay file de new de class door marka class-ka doortid packages-ka marka horeysa uu weydiinaya laakiin muhiim iska tirtir package uma baahnid okay halkaas waxa ku qoraysaa class-ka magaciisa okay class-ka magaciisa marka aad qortid hadda ka soo test1 baan bixiri faylka class-ka si isku magac u noqdaan isaga ayaa isqaabilsiinaya oo labadaba ku qoraya marka halka hadda tigta si saaratid for main-ka oo ah main method-ka haddii aad si saaratid dabcan iyadana waa lagu soo qorayaa class-kii iyo main method-kii iyo maxay tolay practice-kii oo waxa weeye waa ku diyaarsan yihiin only in aad waxaad soo bandhigaysid gelisid main method-ka waa option haddii aad ku soo darsatid iyo hadda iska rabtid labadaba waa awoodaa sidoo kale packages-ka wuu ku diyaariyey oo korka sare yacni package-ka soo qaadan lahayd korka sare kugu diyaariyey laakiin hadda aan package ma isticmaalayno insha allah waxaan soo daabici doonaa testiga ugu horeeya oo ah hello my dear friends okay soo jeedaan okay haddaba aan rangarayno okay de always dooro inuu resource-ga markasta ku safdiraya and then waad aragtaa ma filaya hadda hello my dear friends wuu inoo soo daabacay okay hadda markuu soo daabacay waxaan u baahannahay in aynu project labaad ama folder labaad aynu ku samayno isla test1kaas laftigiisa okay waxaan tijaabinaynaa projectkii labaad oo faylka labaad ahaa waxaan tegaynaa faylka yafa project ayaan sii dooranaynaa then magacaynu qoraynaa faylka magaciisa folderka magaciisa yacni okay test2 badhe finish de okay finish marka tiraahdo don't create dooro okay intaan inaa soo koobiya then waxaan u baahannahay in aynu samayno folder file aynu ku ridno yacni folderkaas file inaynu ku ridno java inaga tijaabinayno in ay labadaas program in ay laba meelood kala galeen iyo in ay isku meel isugu ururayaan insha allah marka file soo dheh new de class dooro okay class marka aad dooratid create java class oo jeedaan xagga hoose okay waxaad dooran kartaa shifty plus n shifty plus shifty alt plus n okay aan test laftigiisa gelin inuu yani soo qabto iyo in kale hadda exist wayna waaya oo jeedaan in exist leeyahay marka aan soo existiga oo tirtiro projectga ama meeshu yaallo inaynu ka qaadno oo in ranno faylka folderkan kuma ridayno waxaan ku ridanaynaa test2 baan rabnaa inaan ku ridano okay test2 click c then resource-ga ku dhufo resource de then hadda wakaas inaga qaaday dabcan hadda exist ina malaha okay main method-ka sii deysan kartaa okay hadda oo jeedaan intii hore uu inoogu diyaariyey ayuu inoo diyaariyey okay aynu tijaabino hadda okay this is a test2 raaci okay okay rangare then oo jeedaan waa same name haddana ma isdiidayaan okay waana easy hadda tusaad usoo kicisid aad u heshid faylashaadii mid kasta isagoo meel gaara aad ugu hagaagaysid dabcan waxaan rabaa in aan soo kiciyo testiga hore okay
testiga hore saan soo kiciyo horta sug iga xir testiga hore iga xir oo test 1 ah. Okay, close iga dheh. Okay, hadda waxaa samaysaa file dheh, open file dheh. Okay, folderkaagii ku yaalay raadi, desktop-ku yaalay, new folder 2 u sii yaalay. Okay, test 1 baan u baahnaa in file ku jira aan dibadda soo dhigto. Source-gaas ii gelaysaa. Okay, test 1 java waa haysaa, soo qabsanaysaa, open baa dhahaysaa. Kaas ku diyaarsan yahay filekii, waana easy sad yani mar labaad isticmaashid. Insha Allah intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa haddii rabbi idmo. Rajeynayaa inaad aad iyo aad u fahanteen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.